كلو آد وحيس بدن نينك هالكان كاغا موقdo dabcan waxa laga yaabaa in aad u taqaanid Somali Cowboy ama Abdi Noor Iftin hadii aan ku dhaho intaba lama dhaho ee magaca hooyadiis iyo aabihiis ugu wanqaleen ee loo bixiyay waa Maxamed Noor Iftin waxa uu bedelay cid kan Yahuuda ah ee kaniisada lahayd marka ay soo dhoofiyeen ee dibadda ay keeneen ninkana arkaysid naanees weyn ayuu leeyahay oo reebul xubay dhan u yaqaanaan Maxamed Noor Iftin waxa uu raaco magac naaneesa magacaas oo ereyga ka bilaabanayo uu yahay ereyga da ama di uu yahay وتفهمي كرتين ريبول حويا كانوا كسو قروتين نكان أركيسيد كل شيء كذا أنت أنا قالين صور كان ماشان كاغا موقضة بل أنك وضع هذا صور كان دي أنا يسو دويو واحد جرين كاغدال يالو كنيسة ده أي يالان وأنا علامات كريستانتا مارت ودها جاريج أي سارنتا وجاريج أي سارنتا قف مسلمنا كنيسة جوجو هذانا تذكر رن أقص بينايا محوك قد بينايا محونا كشان كينايا كنيسة دان ومال دين تودر كوبا فافيان طبعا قف الدوا كان كيستاغنا waxa uu sheegayo de maanta la isma weydiinayo aniga aday manta ka wada hadli karna ma ahan oo fahmi kartaa wax diiniina ayuu faafinaya diintu uu faafinaya diin muslim ka noqon karto waaba diin naga soo horjeedo meeshu joogana waa meeshoodi okay ninkan videogan bal wax yar la dhageystay I get into an argument with my mom and I would say all the moving stars are, you know, everything that you see in the sky that's moving, it's not a star. Some of them are satellites. And she would tell me, shut up. And then I would say, Mom, what does heaven look like in terms of in Islam? Can you describe it? ninkan waxa uu leeyahay markii aan yaraa hooyadii ayaan waxaan weydiin jiray maxay tahay xidigahaas meeshaas dayax maartay xidiga miya cirka wax wada joogo dhan hooyadiis waxay too wada xidigo laakiin asaga waxa uu ku yiri waxa laga yaabaa dayax gacmeed inuu ku jiro ama satarlaadiin inuu ku jiraan qof yiriisa ilmo yiriisa Soomaali jooga satarlaad inuu yaqaano waliba da'da asaga waqtiga uu dhashay da'du dhashay asaga waa 1984 waa 39 jir waay waa fahmi kartaa waqtigaas satarlaad iyo waxyaabahaas dadka si u kala fahansanayeen mas'alada maskaxdaada cunugaas uu ku fikiraya hadii aan ka soo tagno waxa uu ku yiri hooyadiis ayuu wuxuu ku yiri waa cunug yiriisa markuu ka hadlay cunug yiriisa ayaa ahaa ayuu leeyahay okay waxa uu ku yiri hooyadiis hooyo bal iga waran muslimka waxay ka aaminsan yihiin ama sidii macnaha u sharaxi karaan jannada waxa ay tahay hooyadiis waxay ku tiri waxay leedahay wabiyo caana wabiyo muxuu ahaayay tole isheeg malab ah geedo qurux badan ayaa ka jiro waxyaabo noocaas maartay ubaxyo qurux badan ayaa ku beeran sida caadi ugu sharaxday asagana waxa uu yiri uu jawaabay hooyadii hadda waxa ay sheegayso hooyo waa Mareykanka caadi ay sawirtay sidoo ku ogaado Mareykan inuu yiriso Soomaali joogo oo Mareykan waxaas ana ka jira sidoo ku ogaado waa qayaaliga uu rabo inuu naga dhaadhacsiyo okay taas hadii aan ka soo tagno ninkan kombadan meeshan ku taalo waxa ku taalo piece of mass ayaa ku taalo waa company weyn oo caana macnaha qamriga iskale qamri macab ayuu yiri oo shalad wuxuu naga rabay inuu naga dhaadhacsho bahash yarta uu cabaayay inay ahayd ukun balse company-ga hadda kombadan gacanta ku haysto company-ga waa kana videoga ma la daawado. All the hops were grown by 4-Star Farms in Northfield, Massachusetts, and all the barley and heirloom corn was malted by Valley Malt in Hadley, Mass. We're proud to produce a beer that celebrates our agricultural heritage and honors our home state wholeheartedly. Cheers to Massachusetts. Okay. Company-gaas Masshole. Piece of mass. ninkan alcoholista inuu cabo shak kuma jirto laakiin hal mid hadaan isweydiino ninkan ma wax hore uu aaminsanaa markii dibadda la keenay ciidan Yahuuda ay keentay dadkan gaalada iska gadgadayay mise waqti xaadirkan wax weeye waqti xaadirkan qof aan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yiri ma dhihi karo waa gaal mana ku tilmaamay gaal laakiin ninkan in uu 12 waji inuu leeyahay 12 face inuu leeyahay afkiisana 15 carab ay ku jirto ayaa rabaa inay la ogaado taasna ogaada hadii aad ku taageersan tahay oo aad ku raacsan tahay de qof iga soo horjeeda taa waxna muu arko naceebkaaga iyo jecelkaagana waxba iguma soo kordhinayso hadii aad aaminsan tahay diinta ilaahna waafaqsan tahayna de wax walba oo indhahaaga macnaha macallin ay ku yihiin waa u jeedaa waxa uu yiri photoshop ayay ahayd fiidiyoyaasha laga soo sameeyay ninkan